kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka warbaahinta Soomaali Press TV qodobada ku dhaw doontaana hadduu rabidmo waxa ka mid noqonayo safiirka cusub ee dawladda Imaaraadka oo filla Soomaaliya lagu qaabilay iyo kulamo waaweyn oo xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya maxaa ka jireen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safiirka dawladda Imaaraadka ku wareejiyay saldhigyo waaweyn oo Soomaaliya ku yaalo iyo qorshe cusub oo dawladda Imaaraadka ay ka leedahay Soomaaliya oo loogaaday waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay dawladda Imaaraadka Carabta oo kordhinayso qorshaha ay hubka ku soo gelinayso gudaha Soomaaliya isla markaasina Fariisiin ay kaga dhigayso dawladda shisheeye iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qalinka ku duugay qorshahaasi wararkii ugu dambeeyay ayaan idinku soo gudbin doonaa fariinta dhamaalka ah ee la soo gaarsiiyay madaxweyne Xasan Sheekh laguna hambaliyanayo aqbalaadiisa ku aadan in dawladda Imaaraadka ay dib kaga howlgasho Soomaaliya macluumaadka kale aan idin wadaagi doona hadduu rabidmo waxa ka mid noqonayo wararkii ugu dambeeyay dawladda shisheeye oo loogaaday inay ku lug leeyihiin fashilinta dagaalka ka dhana ururka al-shabaab maxaa ka jireen xubno dawladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan ay isticmaalayaan dawladaha shisheeye ee haatan ku hol jira fashilinta dagaalka lagula jira al-shabaab ee dalka lagaga xoreynayo waxaan idin soo gudbin doonaa magacyada shakhsiyaad iyo dawladaha caan ah kuwaas oo loogaaday inay toos ugu lug leeyihiin fashilinta dagaalka ka dhana ururka al-shabaab oo ay dawladda iyo dadka shacabka isxilqaamay ku jiraan xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo baahin doonaa wararkeena kaleetana waxaa ka mid noqon doono xaaladda Somaliland oo maanta aad u cakiran iyo banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wato oo xalay ka dhacay Somaliland booliiska oo xabsiga dhigay tiradii ugu badneed oo banaanbaxyaal ah iyo Somaliland oo hanjabtay mucaaradka kadib markii ay ka hor yimaadeen madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi haddaba fariimaha jabaadaha oo ay Somaliland soo saartay booliiskuna ay ku dhawaaqeen ayaan idin soo baahin doonaa asaatee daawadayaal dhamaantiiba marka hore waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan like adadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadeena kala mahadsanidin aan ku bilaabo waxaa xalay madaxtooyada Soomaaliya lagu qaabilay safiirka cusub ee dawladda Imaaraadka Carabta ee u soo magacaawday Soomaaliya safiirkaasi oo warqadaha haysa aqoonsiga danjirnimo laga gudoomay safiirka cusub ee dawladda Imaaraadka ee u soo magacaawday Soomaaliya Axmed Jaamac Al-Murwayzi ayaa la sheegay in uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu la wadaagay salaan iyo waliba dambaal uu kaga sigaday madaxweynaha dawladda Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan iyada oo wararkuna ay sheegayaan in kulanka marka la eego qaabilaadda iyo waliba ka gudoomida aqoonsiga danjirnimo uu dheeraa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya lagaga mahad celiyay taageerida iyo garab istaagga uu muujiyay dib u soo noqoshada kaalinta dawladda Imaaraadka ee Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa ay magaalada Muqdisho iyo waliba gobolada Soomaaliya ee ka wada qorshayaal waaweyn kuwaas oo hirgeli waayay inta talada u hayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macluumaadka la helay ayaa tilmaamaya in dawladda Imaaraadka Carabta ay u suura gashay inta uu haatan muddada kooban oo xilka hayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay dib u soo nooleeyso awoodeeda Soomaaliya isla markaasina ay bilowdo qorsho ay hub si qarsoodi ah ay ugu geenayso meelo badan oo kamid ah Soomaaliya sida magaalada Boosaaso oo la warinayo in saldhigeeda ugu weyn ee haatan halkaas ka furanayso madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo mashruucaasi qandaraas ku qaatay ayaa la sheegay in si weyn ay dawladda Imaaraadka ugu mahad celisay tallaabada geesnimada leh ee ay qaateen inkastoo tallaabadaasi baarlamaanka Soomaaliya la rumaysan yahay in aysan wada ayidsaneen qaar kamid ah ayaa la sheegayaa qorshaha dib loo soo celinayo kaalintii Imaaraadka oo ay hore dawladii hore u eeriday inay u arkaan inay tahay mid hoos u dhac ku ah qaranimada Soomaaliya safiirka Imaaraadka ayaa macluumaad kale oo la helo waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wareejiyay lacago malaayiin dollar kuwaasi oo la tuhmayo in dawladda Imaaraadka ku abaal marinayso madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ogolaanshihii uu ogolaaday inay dib ay kaga howlgalaan Soomaaliya sidoo kale war la helay waxay sheegayaan in dawladda Imaaraadka Carabta tiro dhowr askara horaantan ay ka daabushay magaalada Muqdisho isla markaasina loo daabulay dalka Masar halkaas oo tababar ay ku soo qaadan doonaan kadibna ay ka mid noqon doonaan ciidamada calooshooda shaqaystayaasha ah ee ay wax walba dawladda Masar ay rabto u hirgelin doono inta ay ku howlgalayso uu jiro madaxweynaha dawladda haatan uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh geesta kaleetana daawadayaal haddii aanu fiirino intaana ka bixin faragelinta dawladaha shisheeye ee ku hayaan Soomaaliya waxa soo baxayo macluumaad sheegayo in ay jiraan dawlado waaweyn iyo shakhsiyaad caan oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ku hoolan fashilinta dagaalka ka dhana ururka al-shabaab
saacadii la soo dhaafay waxa si weyn u soo baxay macluumaad sheegayo xoogga ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dibadda ah kuwaas oo fashilinaya dagaalka al-shabaab. madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaaca ka qaaday in xoogga ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dibadda ah ay haatan ku raad joogaan sidii ay u fashilin lahaayeen iskaashiga dagaalka dadka shacabka iyo ciidamada militariga Soomaaliya iska kaashanayaan ee looga soo horjeedo ururka al-shabaab. Waare ayaa tusaale waxa uu soo qaatay ka bixitaanka ciidamada dowladda ay ka baxeen deegaanka Wabxay ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay dib u qabsadeen dagaalyahanada kooxda al-shabaab iyada oo dagaal beeleed uu ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. kadib ka bixitaanka ciidamada xoogga ee Wabxo iyo waliba ka sii dirista dagaal beeleedka Cadale waxa ay cadeen u tahay in xoogga qarsoon ay ku jiraan dowladda iyo waliba kuwa dibadda ah ay waxyeelanayaan dagaalka ka dhanaa qawaariita. waa arrin murugo leh waana sir furan ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee Hirshabelle. madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sheegay in haatan la joogo waqtigii lagu hortagi lahaa kooxaha fashilinayo dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab. Waare ma uusan magacaabin kooxdan hase yeeshee toddobaadyadii dhawaa ayaa waxaa gabaabsi xoogan uu ku yimaaday dagaalka ka dhanaa kooxda argagixisada ee al-shabaab taasi oo la sheegay inay weeqday rajadii laga qabay dagaalkii inuu guuleysto. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ahayd ahmiyadiisa dagaalka uu haatan dalka ku jiro ayaa la tilmaamayaa inay weeqday dhiirigelintii dagaalka safaro tirabeel ah oo macno dara isla markaasina madaxweynuhu dalal kala duwan uu ku tagay inkastoo safarada qaarkood ee loo qiilday karo sida oo ay taana haddana wararka ayaa sheegayo in safarada qaar oo madaxweynuhu uu ku tagay sida magaalada Sharm el-Sheikh iyo safaro kale oo uu kaga maarmi karay wasiirka arrimaha dibadda ayaa aad loo dhaliilay. si kastaba ha noqotee madaxweynaha ayaana wax isbedel degdeg sameeyeen isla markaasina caga dhigin dalka waxaana ay u muuqataa in haatan dagaalka waxyaabaha fashilinayo ee ay ka faa'iideysanayaan qodobada shisheeye inay sal u tahay marka loo eego استراتيجية لأنت دجالك كذا ناورك على الشباب جيست كلا تنا وديالا ديانو فيرنا وحاسين لو كذا ديرنا يا حالة السومالي لان يدا معارض كالسومالي لان حالي وعد يكون مرين إن إنسان مصبحوا عنصرين مدحونا السومالي لان sidoo kale banaanbaxyo waaweyn ayaa dhacay ciidamaduna waxay xabsiga dhigeen tiradii ugu badneed ee shacabka. taliska booliiska Soomaaliland ayaa waxa uu ku goodiyeen shacabku ay foodis dari doonaan ciidamada haddii ay sameeyaan isu soo baxyo ay ku taageerayaan xisbiyada mucaaradka. Maxamed Aadan Sadiiq ee dhaga badane taliyaha booliiska maamulka ee goonisku taaga oo warfideenka ay kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa wacd ku maray inaysan u dulqaadan doonin banaanbaxyo. mucaaradka ayaa shalay go'aamo waaweyn soo saaray go'aamadaasi way ku diidan yihiin marka la eego mudxeleedka dhamaaday ee madaxweynaha Soomaaliland. xisbiyada mucaaradka Soomaaliland isla xalay waxa ay ku dhawaaqeen go'aamo waaweyn kuwaas oo ay ka mid yihiin inaysan madaxweynuhu aqoonsaneen Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa balse maamulka oo ka jawaabay go'aankaasi waxa uu ku sifeeyay inay tahay mid ayaan daraa. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Soomaaliyeed production tan iyo kulanti dambe oo diyaarsan.